munaasabadan lagu dooranayay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka iyo ku-xigeenadiisa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk Soomaaliya. Cadceed Cismaan Shuuriye ayaa loo doortay gudoomiyaha ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed halka gudoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay mudane Maxamed Muuse Maxamed. Gudoomiye ku-xigeenka labaadna waxaa loo doortay Maxamed Abuukar Afrax. Gudoomiyaha cusub ee ururka dhaqdhaqaaqa iskaashatooyinka Soomaaliyeed Cadceed Cismaan Shuuriye oo ka hadlay munaasabada ayaa ka mahadceliyay xilka loo doortay isagoona ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarka iskaashatooyinka. xilka inaad ku dambowdo inaad xasanaad ka hesho labada u dhaxeeya kuugu dambeeya alla naga dhigo waxaan ku dadaalaynaa shanta sano hadda maanta noo bilaabatay inaan gaarsiino ururkan heerkii uu joogi jiray wax la mida waxaan ku dadaalnaa haddii alla idmo hantidiisii oo dalka ku kala firirsan oo cid kasta haysato annagoo la kaashan hay'adaha dowladda ku shaqada leh inaan gacanta ururka ku soo celino. Agaasimaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Ismaaciil Macalin Cabdullaahi ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay garab taagan tahay. angalka aan ka soo gali karno oo aan ka shaqaynayno waxay tahay in aan ogaano in shaqaalaha iskaashatada kuwa xafiiska jooga kaliya maaha kuwa kale ee gaadiidka saaran kuwa farnijarka sameeya kuwa badaha ka shaqaynaya kuwa everything ka shaqaynaya oo ku saabsan iskaashatada xiriir qaybaheeda kala duwan ka shaqaynaya waa shaqaale. wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Diiriye Khaliif oo ka hadlay munaasabada ayaa ku booriyay iskaashatooyinka inay ka shaqeeyaan horumarka dalka. xukuumaddan nabad iyo nolol uu ra'iisul wasaaraha ka yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre mudnaanta ugu horeysa waxay siinaysaa waa dhaqaalaha iyo amniga. haddii aan iskaashato jirin dhaqaale ma jiro. waa awoodda labaad ee ugu weyn ee dhaqaalaha ay ku taagan tahay dowladda. sidaa daraaddeed inay iskaashato ay dhisanto isdoorato maamul yeelato waa qayb ka mid ah dowladnimada. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.